kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo adaalaba ka daawan jirteen warbixinadii ugu dambeeyay ee la xiriira fanka siyaasadda iyo dhacdooyinka cajiibka ah markaasi la hadalhayo. fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay ee boggeena YouTube aad soo boqotid nagu dhiirigeli subscribe muuqaalkan like saar xaashidku ma liibaane share garee fadlan ku mahadsanid. warbixinteena maanta daawadayaal waxaynu ku eegaynaa fanaanka maalmaha dambe xabsiga uu hoyga u noqday ee Cabdi Dhaanto. fanaankani oo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ay ku sheegeen inuu fudud yahay oo mar walba hadalladu ay ka dhacaan ayaa waxa ka soo hadlay fanaaniin badan xiritaankiisa. inta ayna u guda galin codadka ay fanaaniintu soo duubeen, fanaankan maxaa lagu haystaa? Cabdi Dhaanto ayaa waxa lagu haystaa in uu maalmo ka hor inta aan la xirin fanaanka al-shabaabka lagu magacaabo ee Cabdi Gaarane Axmed in uu boggiisa Facebook soo galiyay in ay jiraan fanaaniin badan oo isku qarxin raba tiyaatarka qaranka oo dhamaystir lagu sameeyay. waxaa ku xigtay haddana isagoo wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo u shaqeeya maxkamadda sare ee gobolka Banaadir ku tilmaamay inuu yahay xubin ka tirsan ururka al-shabaab ay hay'adaha NISA ay ku daba joogaan lacagna la duldhigay madaxiisa. wiilkan oo lagu magacaabo Xasan Soomaali ayaa boggiisa YouTube Facebook asna ugu soo jawaabay Cabdi Dhaanto oo sheegay in aan looga hari doonin hadalkaas oo maxkamad lala tiigsan doono. habeennimadii Isniinta ayaa Cabdi Dhaanto loo taxaabay xabsiga dhexe ee gobolka Banaadir isagoo eersaday labadaasi hadal. dabagal dheerna waxaa ku haya hay'adda NISA iyo dambi baarista gobolka Banaadir. fanaaniinta ka soo hadlay xiritaanka fanaanka waxaa ka mid ah Idle Cabdullaahi Nuune oo sheegay in dowladda federaalka uu ka codsanayo inay fanaankan xorriyadiisa u soo celiso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومال محمد وجوان وحلا هاي السلامتين. مركل لبعض محل الشيء واليالو إن فنان كحريدي سلوس عليو هدو يستقيم بإيدك شقم كل دين. أنا أنت قابتنا حتى نقول الجرع وجيسنا قرض أنا أركان. مدة كتوحان إيدي الشيء ولا ليال سوماليانا مقرتين عاو أهل صديو عبد الدانتو مفيد اسكعنو اصلا وفودي هي وعواي محاد قدي تيش وقت تيش مالكي او دي فطر هذا وفودي اوغنا هاي رالنا هذا waxaan leenahay askarteena qiimaha badanay soo daaya please and please. daawadayaal inta warbixintan mid ka xiiso badan ku kulmi doona waxaynu kaga tagnaa sidaas nabadgelyo.